kulan wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada channelada Galad Show iyo Leila Cismaan oo mar walba aan ku soo gudbino mowduucyo kala duwan asxaabteena waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyadeena mar kale soo dhawaada haddana waa mowduuc kala duwan oo aan aniga Galad isla falanqeyn doono Cabdiraxmaan Galad ayaa maanta ila fadhiyo sidaad u jeedaan waxaan isweydiin doonaa qof walba waxyaabihii la yaabka lahaa oo uu la soo kulmay inta uu shaqeynay gaar ahaan warbaahinta uu ka shaqeynay maadaama Galad uu ahaa farsamayaqaan wuxuu noo sharaxi doonaa ama wax ka weydiin doonaa wixii la yaabka lahaa ee uu la soo kulmay inta uu shaqada ku jiray maadaama aad ogtihiin in ay iska dhib badan tahay shaqada warbaahinta gaar ahaan farsamada iyo marka dad wax loo farsameynayo waxyaabaha dhici karo Galad soo dhawaaw maadaama in badan ahayd farsamayaqaan meel kala duwan aad ka shaqeynayso marna banaanka farsamo ka sameynayso xafladaha iyo kale marna gudaha farsameynayso wariyaasha markaasi ka shaqeynay meesha maxaa kuula yaabadnaa inta shaqadaas aad ku jirtay waa maasantaa Leila Cismaan runtii waan ku faraxsanahay inaan horta maanta aan kula soo fariisto naga daawayaan dadka janalada Leila Cismaan iyo Galad Show Galad waxay dadku ku bartay inta badan inuu farsamayaqaan yahay misana oo inta badan kadib soo gadaashada uu ka hadlo soo fariisan oo anaga le aan Galad dhahano inkastoo aan ku wareero marka qaarkood dadku markay ku dhahaan farsamayaqaanku waxay fiiq qaataa marka qaarkood inaan korontiista ama motorka ma fahmi karaa farsamo maxaa ku buriya dhisay xitaa farsamo loo yaqaanaa YouTube radina noqdo marka waxa waajib waxa dadka inaad soo fiirsat aad iyo aad asxaabtaadina saragtiin isbartid dadka marka gudday ku qaadan doontaa kulli dadkana horta soo istaagmaan maadaama aan jeclaan aniga in aan mikrofoonka aan ka soo furo maksarka dadkana aan xoogaa aan codkooda hawada geliyo haddana qofta shooga mikrofoon qabtay farsamayaqaanku uu yaqaanaa qof kasta sida qaabka ay tahay uu yaqaanaa sida hadalka waxaan ka raali gelinayaa xoogaa hadday jareeska ka dareemaan anigu waxaan ahaa ninkii farsamayaqaanka nin hadla ma ihi inta badan gadaaran aan idaacadda ka maamulaa dadka hadlo kan wax u farsameeyo waa aniga laakiin dadka ima qaataan inaan maksarka iyo mikrofoonka aniga aan maamulo hawsha meesha ka dhacaysa laakiin inta ugu faraha badan dadka waxaa waaye hadday arkaan inaan xoogaa codka uu cabsi ay timaado amba qalqal yiriis la socdo inaan farsamayaqaan oo hadal badneen uu leeyahay marka wariyaha la joogaa saada ahaada inkastoo wariyaha iyo farsamayaqaanku ay saaxiib dad isku dhow wax isla aqriyo isla joogo waqti badan isla qaatay laakiin inta badan waxaa maqashaan qofta hadlaysa laakiin qofka daahaysa hawsha ka maamula ana kale sheegay ama dadka gaarsiiyo codka wariyaha hadlayo waa suurtagal farsamayaqaanka waay diilo waa maasan tahay waan ku faraxsanahay inaan su'aashiisa weydiisay diidan haway inta joogto wax kasta waa arkaysaa aad iyo aad hawshan farsamadana waa iska dhib badan tahay mararka qaarkood maadaama farsamayaqaanku wax badan aan la kulma aad iyo aad hadda ka hor maalin waxaa dhacday mid ka mid ah ragga wariyaasha waaweyn oo Muqdisho joogaan macnaha waxaa dhacday inaan idaacad aan ka shaqeynayno waagaas inaan xiriirin ka galno bis marka hees xasan samatar iyo Xaliimo Qaliif ay ku luqayso wariyaanka waxa loo mugaan diira yaa heestii aan saarnay markaas waxa hebelo heestan kadib ileen heesaha waa laga dejiyaa marka la saaro fanaanka hebel qaada Allah marka saarkay hogana cabsi yarna way jirtay shock mikrofoonka wuxuu dhahay intaas waxaan naga heestay wariyaanka agal loo mugaay waxa ku luqinay fanaankii Xasan Samatar iyo fanaantii guuriyay maadaama ay gurta ajir xasanaad la soo koobi karaa kasi anigu waayaa marka tafsiirka amal ugu dajiyay tafsiir ba ku saarnaa marka live loo hadlayo cabsanaysid wax walba way dhacay adag tahay intaas mar qura waxa yirtay markuu ninkii yiri rabbi ajir xasaan laga soo koobi karan Allah ka si maadaama ay geeriyootay kaasana waa maanta laga tafsiir noo saareen waxaan ku maasan tahay fanaanana uu heesay laakiin waxaan akhrinay ma aan hees bis waxa dhacday inuu maamulkii soo hadlo uraan idaacada maxaa idinku dhacay ninkan maxaa idaacada ku dheeray narration-ka tafsiirka hees saara tafsiir ma ka dhigay war tafsiir baa ninka xoogaa arabka ka dafay alaga wareeji isgafa ku dhacay waxyaabo kale oo leeyahay waxay hadda ka hor maalmaha ka mid ah waxaan ka qayb galay xaflad ku daafurayay garoon
kubadda ugu ciyaara marka kooxo ayaa la abaabulay iskuuliya ayaa ciyaaraya marka bis meesha marka fanaaniina la keenay waa taqaanaa dadka inta badan heesaha waxaa la sameeyaa playback qofka wuu jila laakiin se heesta xagee ku soconaysa aad iyo aad DJ ha yimaado meesha soo fadhiista aniga سماعة هو ركبت مكسر كحرس ويحيس عشان يستفاني هي من عشان فجأة مدحها ماشي كل جمعة حفلة وين؟ بجد بس كيس بس كم عيب وقت أنا هو مركب ماشي جوجا مركب واسع جوجا مركب فرامي مكسر ك هي استوى نكلينا عرفت هاي بعد كل صور مركب بعد كل صور إلى سكرينيك يا حسن فنينتي أذكر قلنا مثل سوستي أنا حلم ولا سويت فيش أنا جوانا حمرك هاي ما أقصوني فراميه كحرتي كسرت أحد ما أقصوني هاي مرقرة وحنكون برارو عتق قلنا إيه بس بالبوزك واحد بس عن ماشي بس كسان نسوي فيه ولا يساعد بلي بقى المغادر وقت بعد هذا الدب محسوس أنا فانينتي أحدنا كتفت وأنا عبس بركة الله كقال هاي بقول لك أصلا إذا وحنا بلادنا واحد المامي هاي وأنا حتى لي أنك بل مركب قال هذا هوشان قبط بس هوش إله فوزي فقد وضعت لكن دتك فنانين توا فشل سعد لكن واحد ترى قال مركب غرقت mararka qaar wax waa iska iloobaysaa waad aragtaa mararka qaar marka warka aad farsameynayso kale amba hawsha shaqada haysid in aad leenkii mikrofoonka aad warigi warka akhriya u diisa umalaysa markaas aad mikrofoonka muudin warka akhrinka ka codka maqluus talaga haysa marka adna waa naxay noqto adna waa naxaysa mikrofoonka yaa xirtay marka ay leefiin dhibka ay leeyihiin marka qaar kuna wariyaashu dhibka qabaan ku qabna waxay tahay in mikrofoonka ay sameeyaan sax in codka ay ka xiraan xitaa mararka qaar live-ka dhibaatada kale uu leeyahay waxa kamid ah qofka adiga farsamo yaqaan oo farsamada joogo laga yaabaa wariyaha warka intuu aqriyay oo adi saartay in mar labaad uu ku soo celiyo say ku saameysaa mararka qaar waxay ku dhacdaa taas war aqriyaha meesha jooga iyo farsamo yaqaanka inay mashquulsan yihiin sax labadaba mar waxaan markii misaal codkii warkii haday aqrisay saartay واجبت مركز قرطة. هذا المرة ما تقصوا علمنا وين عذار؟ مرة أنقص صحة جبته أديبه وأخريها نفتك اللي ضمن نقول على سندري ما دام حرمها كرد ولا سوق. وابا قصب ولا على. شكل مية بس مقناصة وحتى أسمعك. مركز وكالة عواي. حدين رقم ما كان حاسب وقالني من جلسة. أنت بلغت شيء كراي. واحد من شيء كراي. لكن مرة حاجة. لكن لو شو له ده؟ وأخريه وورك أنتو أخريه. oo misana warkiyo bax ku soo celiyo afar yaqaan ku xasuusto warkaas daaladaysa maxamed cilmi qofta laakiin xirfad laha waxay sameynaysaa hore u sii wadaysaa warkaas aad dhageysateen allah waliba midna waa isku naxaa mararka qaarkoodna waxa waaye farsamo yaqaaniinta aad u xuntiin waqtiga inkasta dirisna oo saaxiibanahay hadda mararka qaarkood dhibaato loo geysataa wixii qalad dhacdanka farsamada hadda koor maalin xarunta aan ku shaqeynayay korontada ورنا على وجه وركي على سكجوجي وركي جوجي كرنتو يا صلاة وقتي ماشي اللي بسوق اللي سنة على هذا اللي بينك كرنتو ده عدو لا قربي وداي منك ورك أخي هاي وريه هاي رام اللي سنة قرر على هذا اللي بينك فرسمنا عيد كلها نيو وحنا عيد فرسمنا أنا قبل هين كرك إيماني أنا الحق أو كرنتو ده هذا ساعة سمي حاجة دبي بحرك لو قلنيس farsamada macnaha farsamada marmar iska macna badan tahay oo xaq iska galay ila tan korontada in la jeclay marka magaceeda la sheegay waxa ay farsamada aniga joogo marka hada waqti la furaayo aniga farsameeyay buugta hada lagu maqlay dadkii maxay aaminayaan marka in ciladaas adiga dhankaaga ka imaan farsamo yaqaan ku sameeyay aad iyo aad dhibaatadaas ma jirtaa